فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal meel kastood adduunka ka joogtaanba waxaan si toos ah idin kala hadlaynaa TV-ga Afrika qaybtiisa afraad ee luqadda Soomaaliga oo daawadayaal nooga barateen caawa kale inaan xilligan hawada idin soo marino barnaamijkii fataawada ee ka anbaqaadi jiray fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. daawadayaal si aad nooga barateen barnaamijka waxaan idinku marti qaadnaa culimada Soomaaliyeed ee kala duwan haday yihiin kuwa dalka nala jooga iyo kuwa na soo booqda intaba. caawa barnaamijka waxaa marti inoogu ah شيخنا الدكتور علي شيخ محمد oo ka tirsan culimada Soomaaliyeed ee jooga dalka Suudaan gaar ahaan caasimadda dalka ee Khartoum barana ka ah jaamacadda Afrika ee ku taala dalka Suudaan. daawadayaal barnaamijka intaan hawada sida tooska ugu jirno waxaad nagala soo xiriir kartaan telefoonka shaashada ku qoran insha Allah taala si aan su'aalihiina ugu gudbiyo doctorka insha Allah taala caawa iyo TV-ga Afrika barnaamijka fataawada iyo Dr. Sheikh Ali oo hawada si toos ugu jira ka faa'iideyso wacan doctor soo dhaweynaya barakallahu fiik Allah ybarak fiik khayr waan dhawahay walaal barakallahu haddii aan su'aalaha caawin oo yaala hore u gallo saa'ilku wuxuu leeyahay waxaan nahay saddex agoon ah dabcan aabahood baa dhintay ka ugu weyn waa 14 jir waxaa la nagu dhahay xoolaha agoonta ruux laga marti gelin karo ruux xoolo lagama siin karo xitaa jaarka agtanada ah weel lama maxay ahayd siin karo si uu mar kale u soo celiyo hooyaday way diiday waxay tiri wixii baahan aan arko wixii aan hayo waan siin marka dambi miyay nagu tahay arinta inaan caruurta agoonta xoolahooda la bixiyo bal intiinaan su'aasha u galin waxaan ka horeysiinaynaa agoonta xuquuqda ummadda muslimiinta ku leeyihiin doorkay ka taagan yihiin diinta islaamka. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بمهد له سبحانه وتعالى مهد بلارون لكوبي كريم. هدي أينو شيخ مطير وسؤاشة ولا نسوك عنه دينة الإسلام كا إن بدن بي أغونتا كهذا شيء أيضا فربدن أو قرآنه أي إلهي سبحانه وتعالى وكهذا لي أغونتا إيا مال كودا iyo makaanada maalkooda uu leeyahay qaabka in loola dhaqmo ay tahay axaadiid fara badanna nabigeenu sallallahu alayhi wasallam suubani uu kaga hadlay agoonta iyo ricaayadeeda ama ilaalinteeda iyo makaanada ay leeyihiin qiimaha ay leeyihiin qofkii agoonta ilaaliya iyo in lagu xadgudbay dhibka ay leedahay intaba nusuus fara badan ayaa ka hadashay oo ka hadashay cinaayada la siinayo ama ilaalinta la siinayo wanaagga loo samaynayo kafaalaqaadkooda barbaarintooda ilaalintooda madax u salaaxidooda waxsiintooda intaba waa laga hadlay. sidoo kale waxay diintu ka hadashay oo aad inooga reebtay in aynu wax tacadiya ku samayno ama xadgudub maalkooda in aynu ku samayno iyo iyagaba. aayado fara badan baa ka hadlaya aayadaha ilaahay uu inoogu dardaarmay agoonta inaynu ixsaan iyo walaag u samayno waxaa ka mid ah aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay suurat الnisaa wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin. ixsaanka cidda loo samaynayo ilaahi subxana wa tacaala ee cibaadadiisa uu la xidhiidhiyey waxaa ka mid ah agoonta ayaa ka mid ah oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala walyataama agoontan in ixsaan loo sameeyo ayuu ilaahay ina amrayaa. xadar ama in yani maalkooda qish lagu sameeyo oo maalkii maal si baatila looga cuno ilaahay naga reebay ayad qur-aanahoo kale wa aatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu alkhabiisa biاطayib walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kaana xuuban kabiiran baa ilaahay subxaana wa tacaala aayad kaleo qur-aan uu ku leeyahay. wuxuu ilaahay si toosa inooga reebayaa maalkooda in la cuno ilaa bilatii hiya axsan. ilahay wuxuu leeyahy walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xataa yabluqa ashudda ayaa ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay. aayado fara badan baa xagga maalka kusoo arooray lafahooda ilaahi subxana wa tacala iyagana uu ka hadlay fa ama alyatiima falaa taqhar inaan la guulguulin inaan dhibaato loo geysanin ayaa ilaahay uu inoo sheegayaa. sidoo kale nebigu sal alla alay wasalam wuxuu nagu booriyey in agoonta
la kafaalo qaado in ixsaan loo sameeyo. wuxuu leeyahay xabiibku sala allahu aleyh wasalam aniga iyo qofka ana wa kaafir alyatiim hakada ama kahaatayn buu nebigu yuri sal lla alay wasalam labadiisa farood ayuu xidhiidhiyey wuuna kala geeyey sida xadiidku uu sheegaya wax yar in yani fi ljanna aniga iyo qofka kaafilka ama agoonka kafaalo qaadaay saasoo kale ayaanu jannada nahay ayuu nebigu yuri sala allah aleyh wasalam. saa darteed bay culimadu xadiidka markay sharxayeen ibnu xajar alcasqalaani oo kale wuxuu leeyahy qof walba oo muslima waxaa u haboon inuu ku dadaalo inuu qof agoona kafaalo qaado si nebiga sal alla alay slam isagoo ku dadaalaya inuu nebiga sal alla alay slam jannada yani kula rafiiqo rifqiga nebiga sal alla alay slam uu jannada kula rafiiqayo isagoo u sacyinaya qof kasta oo muslima sidaas ayaa looga baahan yahay. xadiid kale nebigu sal alla alay slam man dama yatiiman bayna almuslimiina min طacaamihi wa sharaabihi xataa yastagniya canhu wajabat lahu ljanna ayuu nebigu leeyahy sal alla alيh wasalam. wuxuu inoo sheegaya qofkii yani xadiidkana kafaalo qaada qof yatiima yani cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo uquma arrimihiisa in janna ay u waajibtay ayuu nebigu inoo sheegaya sal allahu alيh wasalam asaadiq almasduuq. waxaynu garanaynaa oo kale oo nebiga sal ly slam iyadana yani sunnadeena aan ka helaynaa in nebiga uu nin u yimid oo uu u sheegtay qaswat alqalbi ama qalbi ingeeg inuu yani shakwa ama cabasho ku saabsan inuu qalbigiisu ingegay. waa runtii naseexa ayuu nebigu sal ly slam qof walba oo maanta yani qalbigiisa inuu qooyo raba u taalla ayuu nebigu u sheegay sala allahu alيh wasalam. wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alيh wasalam atuxibu an yaliina qalbuk wa tudrika xaajaatak ma jeceshahay in qalbigaagu uu jilco ood xaajaadkaaga ama arrimahaaga gudagsidood haleeshid. wuxuu ku yidhi agoonka u naxariiso madaxiisa u salaax tacaamkaaga wax ka sii qalbigaagu markaa wuu jilcayaa noloshaadana ama baahidaadana waad gaadhaysaa ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam. agoonka marka agoonta yani in wanaag loo sameeyo sidaas ayay nusuustu inoogu boorisay in layska ilaaliyo iyaga iyo maalkooda labadabana sidaas ayay sidoo kale nusuustu aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta nebiga sal alla alay slam udgoon ay inoo sheegayaan. qaacidada marka ku saabsan mar hadday saas arrintu tahay ku saabsan sideebaa agoonka maalkiisa qofka wasigaa ama qofka yani maalkiisa ama agoonkii markaa iyada mas-uulka ka ee weliga ahi sideeba ula tacaamulayaa maalkiisa. qaacida ayaa jirta. qaacidada waa 3 qaybood weeye. maalka waxaa lagula tasarufayaa 3 arrimood buu noqon karaa. in shaygan nafci maxdiya yani nafci oo keliya uu ka imanayo shaygan uu qofku sameynaya maalka uu ku sameynayo inuu wax nafci oo keliya ah keenayo sida inuu qofkii dee qof macnaha maal loo soo hadiyey u qaado wax loo soo sadaqaystay inuu qaado maalkoodii yani inuu khayr usoo jiido waxyaabaha noocaasihi waa shayga mar walba bannaan ee loo baahan yahay qofka agoonta mas-uulka ka ahi inuu sameeyo. qeybta labaadi waa shay ah darar maxdi wax la yidhaahdo ama dhib maxdiya. dhibka maxdiga ahi waa inuu agoonta maalkoodii wax ka bixiyaa ka mid ah. tusaale ahaan inuu agoonta maalkoodii wax ka bixiyo ama sadaqa ha noqoto ama hiba ha noqoto ama ayankaana shaklaha yani noocay doonto ha noqoto agoonta maalkoodii intuu qaado inuu dad siiyo ayaa ka mid a. taasi ma banaana. waa arrin aan marnaba banaanayn sharcigu inaga xaaraam yeelay in qofkan yani uu sameeyo uu ku tasarufo tasarufka noocaas oo kaleeta ah wixii waajib ku ah ee zakada oo kale a mooye yani wax aan zaka ahayn oo uu ka bixin karo qofka agoonta arrinteeda tawaliyaya uu maalkooda ka bixin karo oo uu bixin rasmiya u bixin karaay ma u jiro. midda saddexaadi waa in shaygu dararna uu ka iman karo maslaxana ay ka iman karto. kaa isaga ah wuu bannaan yahay inta aan la sugin in dhibaatadu ay badan tahay. tusaale ahaan maalkii in lagu in loogu taajiro maalan waa shay bannaan bal waa shay ma'muura sida aynu nusuus ka helayno aynu ka arki doono aynu ka arkayno in maalka agoonta la geliyo ganacsi in la geliyo. haddii ganacsigaa loo arkayo inuu yahay mid maal u keenaya mid faa'iido u keenaya mid ribix u keenaya inuu yahay loo arko agoonta maalkoodii in loo iibiyo waxna loogu soo bedelo loo soo iibiyo tusaale iyadoon ganacsiba ahayn waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah waa waxyaabaha bannaan ee ruuxan ah yani weliga ah ama mas-uulka ka ah agoonta uu samayn kara weeyaan. waxaa ka ratimaysa marka dawaabid bay shareecadu u dejisay arrimahaas markii la isku soo duuduubo. waxaa weeye infaaqa tusaale ahaan iyaga wax lagu bixiyo cuntadoodii yani xaajaadkoodii daruuriga ahaa dabeetana yani wifqan lilawlawiyaat shayga uga baahan yihiin marka hore daruuriyaadkooda in laga daboolo maalka kadib waxyaabaha xaajaadka kale usii baahan yihiin kamaaliyaadka oo fi lmubaax ah cinda daruura waxyaabaha kamaaliyaadka cinda daruura yaa iyadana loo samayn karaa. waxyaabaha noocaasihi waxyaabaha banaana in qofku uu sameeyo loo baahan yahay. sidoo kale in uu
waxaa daruuriya shayga uu bixinaya inuu ku bixinaya ay noqoto oo meel xalaala oo yani waxaan uu cunsiinayo waxaan uu siinaya qaabka ugu tasarufayo kulligood inay noqdaan wifqan lisharc oo shay muxarama marna uusan maalka agoonta gelinin qofku. sidoo kale haddii maalku nafaqadooda iyo uu ka badan yahay inuu ugu ganacsado oo maalkii ganacsi iyo waxyaabihii u faa'iideynaya u ziyaadinaya ribix u keenaya in loo geliyo ayaa iyaduna ashyaada looga baahan yahay qofka weliga ah ama qofka yani mas-uulka ka ah dadka agoonta ah si ayna maalka sekada u dhammaynin. way sugan tahay aathaar fara badan saxaabada cumar radi allahu canhu aathaar fara badan baa sugaysa in maalka agoonta in lagu ganacsado ama ganacsi loo geliyo ay fiican tahay si ayna uga dhammaynin zakada iyo waajibaadka laga bixinayo iyo infaaqa iyaga la siinayo. aathaar fara badan baa kusoo aroortay imaam shaafici bay ka sugnaatay saxaabadii marka hore ka sugnaatay taabiciinta ka sugnaatay marka in macnaha lagu ganacsadaayey inay masale haboon tahay. taas marka waxyaabaha waxaa weeye iyadna loo baahan yahay qofku inuu sameeyo. waxaan u banaanayn oo isku waafaqsan yihiin dhammaan culimadu in qofka weligiihi maalka agoonta inuusan sadaqa u bixin karin macada ashyaa yaryar oo aan sheegi doono oo su-aashii aan u malaynayo mubaashirkeedu inay la xidhiidhay. zakada in laga bixiyo maalka ayaa haboon sida raajix ee culimadu ay leeyihiin. haddii aynu su-aasha qeybteeda dambe ee ahayd yani tacaamulkii tusaale ahaan waxaa jira waxa aynu sheegnay waa cumuumkii guud weeye. tusaale ahaan agoonta dee cuntaa loo kariyey cuntadii in la yihahdo waxba lagama bixin karo agoonta haddii cuntadii kasoo hadhay waxaa lagu daraya qashinka ma aha waa la bixintaas oo kale waa la sadaqayn. yani waxaa jira ikhtilaad baa iman kara arrimahaas oo dhan ilahi subxana wa tacaala markii aayadaha hadda aynu soo aqrinay ay soo degeen walaa taqrabu maala lyatiimi ila bilati hiya axsan oo kale ay soo degtay ha u dhowaanina ay soo degtay ila bilati hiya axsan in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayasluuna saciiran. waciidye adag oo ilaahay aada ugu digay ama aada ugu goodiyey dadka amwaasha agoonta cuna ayaa soo arooray. dabeetana arrintaas waxay keentay in saxaabadii ridwaanullahi calayhim ahaa ee waaqici markaa joogay inay agoontii waxoodii gooni uga dhigaan cuntadoodii gooni uga dhigaan weelkoodii gooni uga dhigaan ka fogaadaan. bimacnaa haddii tusaale ahaan qof uu agoon hayay oo carruurtiisa wax loo wada karin jiray wuxuu sameeyey in weel gooni agoonta ha loogu kariyo la yidhahdo si ayna wixii isugu darsamin oo si gooniya wax loogu kariyo oo si gooniya waxoodii loo sameeyo oo maalkoodii haddii xoolahoodii caana laga soo liso tusaale ahaan caanihii iyaga un la siiyo oo wixii kasoo hadhay aan loo dhowaan karin ayaa timid. fahamka noocaasa ayaa yimid. dabeetana ilahi subxana wa tacala aayadanu soo dejiyey wayasaluunaka can alyataama qul islaaxu lahum khayr. in wanaag loo sameeyo ayaa khayr badan baa ilahi subxana wa tacaala uu leeyahay. arrintaas markay saxaabada ku adkaatay khayrkaasu marka yani ikhtilaadkii baa ka dhalanaya maalkii agoonta in la isku dhex tarsan karo in wax la wada cuni karo in tusaale ahaan weelka in dee maacuunta oo kale la isdabaadulsan karo oo su-aasha hooyada gabadhan carruurta hooyada u ah in dumarka ay weelka kala qaadan karaan yani ma bixin karto inay maalkii yatiimta in bixiso oo ay sadaqayso looma ogola laakiin inay wax lagu samaysto wax lagu karsado oo loo soo celiyo oo lala isticmaalo o dadki wax la isticmaalanayo oo iyagu wax soo qaataan oo wax laga qaato waa masalo banaan oo tacaamulkii macnaha inay dadka munfasil ka noqdaan oo mujtamaca laga dhex saaro arrintu ma keenayso. saa darteed baa wain tukhaaliطuuhum fa ikhwanukum wallahu yaclamu almufsida min almuslixi wallahu yaclamu almufsida min almuslix marka maxay u taala wain tukhaaliطuuhum fa ikhwanukum ba ilahi subxana wa tacaala. yani haddii aada mukhaalataysaan ood isku darsataan ood wax wada cuntaan ood wax kala qaadataan waa walaalihiin dadka un bay lamid yihiin wixii macnaha aan tacadi markaa maalkoodi in la qaato ku keenaynin. laakiin ilaahay muxuu og yahay wallahu yaclamu almufsida min almuslixi kii arrintaa iyada fasaad u samaynaya ee doonaya waxaa la isku darsaday inuu waxooda ku qaato wax ku hoos qarinaya iyo kii sidani ay tacaamulkii caadiga ahaa ee lilaahidaa ka tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu og yahay. waa yani waxaa weye ilahi subxana wa tacaala yani khabiir bicibaadihi subxaana wa tacaala weeye. markaasa dabeetana saxaabadu isku darsadeen ay ku darsadeen yani agoontii ku darsadeen oo cuntadii ku darsadeen oo cabitaan kale isku darsaday oo weelkii oo tacaamulkii sida dadka caadiga ahaa loo tacaamulayey ee la sameeyey. caaisha radi allahu canha umuna caaisha radi allahu canha waxay leedahay waxaan necbahay bay leedahay inii la akrahu an yakuuna maala alyatiimi cindii calaa xaddihi xataa akhlita طacaamahu biطacaamihi wa sharaabahu bisharaabih. yani inaan gooni uga yeelo waan karayaa bay leedahay in aan ku daro mooyaane bimacnaa in maalkii gooni loogu yeelo oo wixii gooni looga dhigo arrintaasay macnaha ayay diidan tahay. qul islaaxu lahum khayr ayaa meesha taalla oo in wanaag loo sameeyo oo khayr mukhaaladadaas la isugu darsado oo loo sameeyo oo iyagii loogu daraynayo si ayna mujtamaci uga fuquuqmin oo ayna macnaha mujtamac faquuqan oo la iska ilaalinaya u noqonin ayna u noqonin si fiican in mujtamac macnaha gooni looga ururinayo
aynan qurbo iyo u dareemin inay mujtamacii ka dhex baxsan yihiin. marka in tacaamulkii caadigaa lala tacaamulo laakiin maalkoodii aan lagu xadgudbin. qofka u qumaya arrimahooda wuxuu ka cuni karaa si wanaagsan, yani haddii uu iska daayana saa ayaddii noo sheegaysa naskeedu way kasii khayr badan tahay iska dayn karo. haddii uu si wanaagsan uga cunana waa loo ogol yahay qofka maalka macnaha agoonta intay ka gaarayaan macnaha xilligii loogu talagalay in maalkooda lagu wareejiyo qofka arrimahooda u qumayay uu ka cuni karaa wixii daruuriyaadka ay u baahan yahay, yani la yaqaano curfiga marka meesha uu joogo uu ku dureeray ee loo yaqaano yani isticmaalkaas ayuu ka isticmaali karaa haddii uusan wuxuu ka kaaftoomo una haysanin. dabcan hooyadu iyagay ka mid tahay. maalka laftiisa waxaa laga yaabaa markii la leeyahay agoontaale ninku markuu dhinto soomaalidu maalkii soo hadhay oo dhan inay agoonta uuna leedahay baa loo arkaa. agoontu keligeed male, hooyadu dhaxalka waxbay ku leedahay, yani gabadha caruurta dhashay maalka waxbay ku leedahay. marka iyada lafteedu maalka waxbay ku leedahay, nisbay leedahay. haddii nisbadii la qaybiyo oo sidii dhaxalka loo yaqaanay la qaybiyo nisbadeeday qaadanaysaa. haddii aan la qaybinin oo siday soomaalidu wax isugu jiraan intii la kala tegi dadkii isla lahaa ay isku daystaanna nisbadeedii meesha way ku leedahay. marka nisbadeedii wax way ka bixin kartaa, way ka isticmaali kartaa, way ka sadaqayn kartaa, way ka hibayn kartaa, way ku tasarufi kartaa. yani mudlaqa tasaruf wixii ay lahayd oo dhan bay ku tasarufi kartaa, laakiin qaybtii agoontu ay lahayd ayayna ku tasarufi karin. aday baa doctor umahadsan tahay. su-aashaas aad baad u faahfaahisay, walaalkuna ama walaashuna way ka bogatay baan isleehay insha allahu tacaala oo ina daawanaysa. su-aasha kale oo laga yaabo mar iyo labababa inay soo noqotay intii barnaamijka intaan anu dabcan joogay, waxay leedahay culimada qaar baan waxaan ka maqlay ruuxa muslimka ah haddii isagoo aan telefoonka qabanno kadibna aanu soo noqono. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. walaal kusoo dhawo barnaamij aad baan kusoo dhaweynayna walaal. waxaan weydiinayaa su'aal kooda. haye soo dhawaad su-aashaada. waxaan weydiinayaa anigoo diyaar mar ku celi ayaan anabiyaan dameertay kabacdi daariyan cafan codku waa googo-aya adoo raalli ah, marka bal hal mar ku celi. dameertiisu ka dhacay gacanta raalli ahow telefoonku maadaama soo hadlayso wuu googo-aya adoo raalli, bal mar kale kusoo celi adoo raalli. ay shiraayo sheekh wuxuu yihi ruuxa muslimka ah markuu naarta galo culamada qaar waxay dhaheen wuu ku waarayaa oo moo soo baxayo, muslimna wuu ahaa. qaarna waxay dhaheen ruuxii muslimka ahaa dembigiisii baa laga maydhayaa kadibna maxay ahayd usoo noqonayaan jannadaa la geynaya maadaamu la dhahay buu yihi mithqaala dira wixii la ega ruuxii iimaan intaa la eg leh jannada kuma waarayo. marka ra'yigaa labadaa culimo ama labadaa ra'yi la sheegayo naarta kuma waaraya. haa naarta kuma waaraya cafwan. baan rabnaa inaad ii faahfaahayso qowlka saxiixa. dadku mas'aladan runtii ahlusunna waljamaca mowqif bay ka leeyihiin midaysan oo aynan ku kala tagsanayn, yani wax khilaaf ah oo culimada muslimiinta. telefoonka qabano oo raalli ah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cafwan haye ahlusunna waljamaca way ku masaladan way ku midaysan yihiin, wax khilaafana dhexdooda kama jiro. waxyaabaha khilaafkana waa madaahib aan ahlu sunna waljamaca ka mid ahayn sida muctasilada iyo khawaarijta iyo ciddii la halmaasha. ahlu sunna waljamaca madhabkooda waxaa weeye dadku markii ay dhintaan waa 3 qaybood. dad waa mu'miniin adqiya ah oo ilaahay subxaana wa tacaala si fiican uga cabsaday, dadkaasu jannada ayuu ilaahay subxaana wa tacaala geynayaa. qubuurtooda waa rawda min riyaad iljanna sida nebigu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam. dadkaasu yani abwaabta jannada ayaa loo furayaa, naciimkeeda iyo yani carafteeda wanaagsan ayaa markaaba ilaahay subxaana wa tacaala uu keenayaa. inuu ilaahay subxaana wa tacaala inagu daro ayaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa, naga iyo muslimiinta walaalaha mushaahidiinta iyo dhammaanba muslimiinta. dadkaasu waa qeyb. akhbaar badan baa nebiga sal ly slam ka sugnaatay, qur-aankana waxaynu ku arkaynaa ilaahay subxana wa tacaala inuu aayado fara badan dadka. telefoonka qabto. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal kusoo dhawo barnaamijka. waan ku dhawahay aad baad mahadsantahay sheekhan doonaya su-aal inaan weydiiyo. walaalay kusoo dhawo. waxaan weydiin lahaa sheekha waxay jirtaa kun yaro inta rag iyo dumarka wada xidhaan oo magaca qof warkiisa ka xaakaamo gabadha. rag iyo dumarku maxay wada xidhaan?
bahal kuul yaro soo tusbax oo kale oo magacuna ku qoran yahay magaca ku qoran muxuu ama magaca gabadha baa lagu qori karaa magaca gabdheed ama magaca wiil baa lagu qori karaa magac nin marka waa rag iyo dumar waa wada xidhaan markaas haddii qofku ama ganacsi oo kale ku keeno ama dee ay wada xidhaan shareecada islaamka maxay ka qabtaa marka xagee lagu xidhaa gacanta caadisa saacadda aad ba kale doctorkeenu xidhan karan maayo laakiin aan maana xidhanin haye doctor waan weydiinaya insha allah aad baad mahadsantahay walaal doctor su-aasheenii hore marka madhabka ahlu sunna waljamaca saynu sheegnay waxaan nidhi qeyb marka waa qeybta aynu sheegnay dadku oo waa qeybtaas ilaahi subxaana wa tacaala ka cabsatay raallihow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم salaam salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام يا ولد دمانتين معاذية شيخة مركب waxaan sheekha weydiinaya xabad laba su'aalood soo dawaro su-aalaha waan kaa qaadnay su-aal ugu horeysa waxaa weeye anagoo saddex wiil oo koray anagoo yaryar hee waanu dameera fuulay dameerii markaanu fuulayda labadii wiil sooliyey dameeraad tuurteen dameeraanu fuulin aanu ku ciyaaraynay waad ku ciyaarayseen haye wiilkii gacantu ka jaqilada marka wiilku ma dameer buu saaraa marka dameerkuu saaraa iyaga wiilkana ahayn wiilkii dameerkiibu ka dhacay gacantiibu ka jabay waan fahmay dameerkan idinka ariyey dameerkan aniga ariyey haye marka wiilkii wax xaqa lama siinin marka sheekh waxaan rabaa su-aasha in iyo jawaab wiilkiina uu nool yahay wixii sharcadu ka xukuntay inaan kala xidhaan raba wixii sharcadu ay ku xukuntay waan fahmay talabaadna waxaa weeye waa iyadoo waddanka abaari ka dhacday haye raashin baa la qaybiyey raashinkii baa la boobay raashinkii baa la boobay marka raashinkii kiish baan qaad dadkii boobayaad ku darmatay kiishkaagaa dhayr la booday dadkii marka kale waa laga soo celiyay anigu laakiin waan la tagay sidii baan kula tegey waan fahmay dadkii la tagaad ku jirtay markaa waa la tagay dadka qaybina waa la tagay dadna waa laga soo celiyay marka dadkii la tagay baan ku jiray waan fahmay marka macnaha maxay noqonaysaa rabaa inaa sheekha ii weydiiso haddii hayda aad waa mahadsantahay walaal ayo waad mahadsantahay labadiina su-aasheenii hore marka ahlu sunna waljamaaca waan telefoonada inoo soo dhex qaybalay si fiican marka haddii su-aashii qeybta waxaynu nidhi ilaahay ka cabsatay ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu geynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inaga mid ha dhigo qeybta labaadi waa qeyb gaalnimo ku dhimatay qeybtaasna nusuusta horena waxay caddaynaysaa in ay ila naar yihiin ilaahay baan ka magan gelaynaa maadaamay gaal ahay maadaamay gaalnimo ku dhinteen waxaa jirta qeybta saddexaadi waa ahlulmacaasi waa dadka muslimiinta ah ee tawxiidka ku dhintay laakiin macaasida kabaa'irta yani kabaa'irtaasu heerkay doonto ha gaadhsiisnaato way kala sokayn kartaa way kala dembi yar yihiin way kala dembi badan yihiin kabaa'irta lafteeda kala waaweyn kabaa'irta kala badan oo qof baa hal kabiiro leh qof baa kabiirooyin fara badan ama dembiye waaweyn oo fara badan kabiiro markaan leenahay waa dembi weyn marka dadkaasu ilaahay baa subxaana wa tacaala arrintooda xukumi qof walba ilaahay baa xukumaya kuwii aynu hore u sheegnay labadii qaybood ba ilahay baa xukumay subxana wa tacaala laakiin kuwana ilaahay subxana wa tacaala sida inoo sheegay diinta inoo sheegtay waxaa weeye in shaa cadabahum wa in shaa gafara lahum marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu cadaabo ilaahay subxana wa tacaala intuu ku tahiro naarta dadka muslimiinta ah waxaa ahlu sunna waljamaca ay qabaan inaysan ku waaraynin naarta qof kasta oo muslima oo tawxiidka ku dhintay mahma balaqa dunuubuhu yani qofkii ku dhintay tawxiidka in kasta oo dembigiisu uu la egyahay inuusan ku waaraynin naarta ayay ahlu sunna waljamaca qabaan aayadaha sheegaya inay ku waarayaan sida tusaale ahaan qofkii qof dilay qofkii yani aayado waxaa jira inoo sheegaya inay ku waarayaan waaridaas waxay leeyihiin culimadu ma aha khuluudkii kufaarta oo kale waa khuluud duuna khuluudi lkufaar ama hayra khuluudi lkufaar bay leeyihiin oo qofku haddii uu muddo dheer shay ku jiro waxaa la yihahdaa weligii saasuu ahaanaya marka saasay macnuhu ka dhigan tahay bay leeyihin culimadu ay ku fasireen yani weligii saasuu ahaanaya waxaa weeye muddo aada u dheer bay ku jirayaan naarta kuwa dembiyada sii waaweyn leh kuwa ka dembi sokeeya in yar baa ilahi subxana wa tacala uu kaga maydhi kuwa kasii sokeeya in yar baa ilahi subxana wa tacala uu kaga maydhi qaar baa cadaab alqabriga lagu cadaabi dabeetana markii qiyaamada la gaaro la jannayn qaar baa midba inta uu la egyahay dembigiisu sida aynu nusuus fara badan ku hayno aayadaha tafsiirkooda ku hayno culimadu ilaahay subxana wa tacaala yani waxay daliishanayaan qoladan khawaarijta iyo qolyaha leh doctor barnaamijkii baa mar hore la ii ishaaray qolada khawaarijta iyo ra'yigooda aan dib uga dhigano insha allahu tacaala dawle qadar nasashaan qaadan doonaa kadibna waan isku soo laaban doonaa insha allahu tacaala إن
كنتم لا تعلمون وما هو إلا ذكر للعالمين. نون تريبان إيو ميمت إيو تنوين تمركان جوجنو يا أدو waxay ka tirsantahay حروف الإدغام. إدغام كنا لaba qaybood buu lahaa بغنة iyo بغير غنة. حروف تقال كلنا وحلي حروف الاستفال. حروف المد وسoo sheegnay waa ألف ay ka horeyso kordhig ama waaw oo reeban oo uu ka horeeyo godniin ama yaa reeban oo ay ka horeyso hoos dhig uu ka horeeyo. walaalayaal marka makharijtaas shanta ah ee caamka ah baa waxaa soo gudagala gudahooda waxaa gala waa maxay 28 xaraf gudahooda ayay dhacaan. barashada quraanka kariimka ah uga barateen TV-ga Africa 4 xaruntiisa magaalada Khartoum. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مركلة عاوة برنامجكي فتاوى ومرتي يقولها الدكتور الشيخ علي شيخ محمود وكتر سنة علماء الصوماليين دلك نلجوجه يعاوة برنامجك فتاوى يتيفيجا أفريقيا أو ستوسة ينقصوا ديني برنامجك كبوشة ونكسن قيب تحدي برنامجك. دكتور waxaan marinay su'aashii dadka ay cadaabka marka qoladan khawaarijta ah ee ahlu sunna wal jamaa ahayn ra'yigooda aan ahayn baad waday. qolyahaas waxay leeyihiin aayado ayaa soo arooray qofku isagoo muslim ahaa haddii uu dembi galo inuu naarta ku waarayo. waxaa ka mida bay leeyihiin waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima. waxaa ka mida xadiidkii nabigaas ay daliishanayaan ee ah qofkii macnaha isagoo khamri cabaya ku dhinta waxaa ilaahay uu ballan qaaday inuu ka waraabinayo khabaal inuu ka waraabinayo oo lagu tilmaamay inuu yahay mililka ama dhididka dadka ahlunaarka ah. waxyaabahaasoo dhan bay daliishanayaan waxyaabo sugan aayadda iyo axaadiidtu way sugan yihiin laakiin culimada ahlu sunna waljamaaca tafsiir ka duwan bay qaateen oo waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala aayadda qur-aanka uu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayay daliishanayaan. wixii intaa ka sokeeyo o dhan shirkiga qofkii aan ku dhimanna ka sokeeyo oo dhan ilaahay inuu u dembi dhaafayo ayay daliishanayaan. khuluudkaas iyo waariddaana waxay leeyihiin waa mid ka sokaysa waaridda macnaha dadka ahlu naarka ah. xadiid buu nebigu ku caddeeyey in naarta dad la gelin doono oo lagu soo dahirin doono oo ay kusoo guban doonaan oo iyagoo wejiyadooda iyo jirkoodu ay yani tilmaamo uu ka bixiyay ay gubteen inay kasoo bixi doonaan oo dabeetana nahrulxayaa webiga nolosha mid la yidhahdo lagu tuuri doono halkaas lagu soo noolayn doono oo lagu soo qurxin oo jirkooda inticaash dib loogu soo sameynayo iyo noolayn iyo qurxin dabeetana iyagoo quruxsan jannada inay geli doonaan markii jirkoodii uu taam noqdo iyo quruxdoodii inay jannada geli doonaan ayuu nebigu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam. marka cusaada iyo ahli macaasida yani ahlu sunna waljamaca siday ka qabaan saas weeye aayado qur'aan ah ayaa sugaya oo ilaahi subxana wa tacala aayad qur'aan ah waa kan ku le waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama. yani tilmaamuu ilaahay sheegay uu leeyahay qofkii sameeya ilaahay wax la wadaajiya ama naf dila iyo naftii ilaahay xaaraam yeelay ilaa bilxaq ama zinaysta dadka noocaasi waxay la kulmayaan aathaam iyo dembiyay la kulmayaan yudaacaf lahu alcadaab yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhana yani inay cadaabka loo laalaabaya maalinta qiyaamada ay ku waari doonaan baa uu sheegay ilaahay subxana wa tacaala wuu ka soo reebay ilahay marka istithnaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu lahu sayi'aatihim xasanaat buu ilahi yihi subxana wa tacala wa kaana allahu gafuuran raxiima. dadkii iyagoo sifooyinkaa lagu sheegay kabaa'irta ee waaweyn kasoo laabtay isagoo mushrik ahabu wa aamana isagoo oo ama yani qof dilay ama zinaystay ama dembiyadii kaloo dhan galay buu yani taaba ilaahi subxana wa tacala toobad nasuuxa dadkaasoo dhan ilaahi subxana wa tacaala uu u dembi dhaafayaa dembigoodiina wanaag buu meesheedii u gelinayaa ilaahayna kii dembi dhaafa ayuu ahaaday.
aayadaha dadka gaalada ka hadlaya inay naarta ku waarayaan way ka duwan yihiin aayadahaas oo yani gaaladu inay ku waarayaan wakadalika yurihim allahu acmaalahum xasanaatin calayhim wamaa hum bikhaarijiina min annaar waa gaalada weeye kuwa ilahay aayadda kaga hadlay sidoo kale yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim buu ilahi yihi subxana wa tacaala marka saddexdaa qaybood in loo qaybiyo ayay ahlu sunna waljamaca qabaan dadka ahlu macaasida in lagu tahirayo naarta dabeetana kii doonana ilahay inuu dhaafi marka horeba isagoona yani dad badan oo ahlu macaasiya waxay ahlu sunna waljamaca qabaan inaan naarba la gelinaynin oo ilaahay uu cafigiisa ugu dhaafi shafaaco inuu ugu dhaafi ay ambiyadu u shafaaco qaadeen saalixiintu u shafaaco qaadeen malaa'igtu u shafaaco qaaday intuba way sugan yihin inay shafaaco qaadayaan marka haddii shafaacadaas ba ilahi subxana wa tacaala addoommadiisa waan wanaagsanay ay shafaaco qaadaan ba ilahay inuu ugu dambi dhaafo oo dabeetana aan naarba la gelinin ilahay cafigiisa inuu ugu dambi dhaafo oo faman shaa yani ilahi uu cafiyaya oo ilahay una naarba gelinin qofkii uu doonana ilaahi subxana wa tacaala inuu naartaa kusoo tahirinayo dabeetana laga soo saarayo dabeetana uu jannada maadaama ahlu tawxiid ahaa inuu jannada ku dambeynayo ahlu tawxiidka oo dhan inay jannada gelayaan bay ahlu sunna waljamaca qabaan firiqda kale ee qabta macnaha sida khawaarijta iyo ma aha macnaha yani marka lama dhihi karo khilaaf baa culimada muslimiinta dhex yaala lama dhihi karo masalada iyada marka muslimiintu ra'yiga ay qabaan waa cadyahay waa cadyahay aad ayaa doctor mahadsantahay ilah ku barkeeyo walaashan oo telefoonka soo gashay waxay tiri waxaa jira dun lagu xidho gacanta oo kolba dumarka magacoodana dumarna lagu qoro ragna lagu qoro la wada xidho marka ma dembiba qaacidada caamkan ka bixinayno tashabuhu waa xaaraam shayga anu hadda ma garan karo shayga uu yahay laakiin haddii uu yahay shay ama dumarka gooni u ah ama ragga gooni u ah oo ay qolada kale la xidheen qoladaa la xidhatay ee kale dembi buu ku yahay maxaa yeelay in ay raggu dharka dumarka xidhaan oo ay tashabuh dumarka isku sameeyaan uma banaana dumarkuna inay tashabuh ragga isku sameeyaan uma banaana laakiin waxaa jira waxyaaba mushtarak oo la wada xidhan karo haddii waxyaabaha mushtarak ee la wada xidhan karo uu yahay fii xaddi daatihina uun ahayn shay markaa waxaa ku qoran ama uu dembi yahay ama shay qaabka uu yahay wuxuu yahay unan ahayn wax la wada xidhan karana uu yahay marka iyadaa dhib ma yeelanayo marka maadaama inaan garanayn qaacidada guudan ka bixinayna waxay tahay shayga dumarka goonida u ahi ragga waa ka xaaraam shayga ragga goonida u ahina dumarka waa ka xaaraam shayga sidiisaba waxa ku qoran iyo qaabka uu yahay uusan yani aadaabta islaamka iyo unan ku haboonayna yani akhlaaqiyaadkii mujtamaca muslimka uuna ka turjumayninna ma haboona in la xidho aaday maasan tahay kolkii dee ciyaarka leeyahay waa la tuurtuur badan yahay marka walaalkan wuxuu yihi anakoo 3 dhalinyaro aanu ahayn nin dameer saaran beenaad u eryay buuri dameerkii wiilka ka dhacay kulaha wiilkii markuu dameer ka dhacay gacantu ka jabay wax xuquuqana maana siin waana nool yahay marka maxaan sameeyaa oo ilo gudboon ficilkiisa haddii uu ku yimid inuu dhaco oo uu jabo oo sababteeda uu lahaa xuquuqdii baa lagu leeyahay ay lahayd gacantu waxaana haboon in culimada meesha joogta la weydiiyo ficilku sida uu dhacay iyo qaabka uu ahaa wax waliba wuxuu leeyahay waxyaaba macnaha yani xaysiyaad baan dhana hadda ayaa la yidhahdaa qolyaha malaha cilmiga qaanuunka iyo waxyaabahan ay yidhahdaan ama masaladu yani mulaabasaadka ay leedahay waxaa ku xeeran qaabkay ahayd laakiin ruuxu ficilka uu sameeyey natiijada ka timaada uu taxamulaya sharcan natiijada ficilka uu qofku sameeyey ka timaada een automatic ahayn ama shay iska yimid aan ahayn uu taxamulaya su-aal kaloo weyna weydiiyey wuxuu yihi dabcan abaar baa dhacday buu yidhi abaar markii dhacday marka dadka raashin baa loo qaybinayay waa lagu yaacay de marka lagu yaacay aayar buu kiishkiisa qaatay dadkii baa laga soo daba orday malaa intii kale waa laga riday isagu nin orod badan buu haayo markiiba uu la baxay marka kiishka raashinka ayaan la tegay ma dembi baa ku leeyahay buu leehay shay guud oo dadka ka dhexeeya inuu qof wax gooniya la infiraado uma banaana shay dadka ka dhexeeya oo mas-uuliyiin leh oo mas-uuliyiintii meesha aynan macnaha ogolaanin ruuxani inuu qaato in si gooniya uu ruux ula keliyoobaay uma banaana masaladaasu yani hanaa-imtii ruuxii wax qariya ruuxii wax gooniya si u qaata nebigu sal ly slam iyo dee quluulkiiba ilaahi subxaana watacaala markii ambiyada uu ka nafiyey wuxuu yihi waman yaqlul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama buu ilahi subxana watacaala marka ruuxii wax gooni ah yani ama si gooniya u qarsado ama si gooniya u xada wax maal ahoo la wada leeyahay uma banaana haddii maalan ay gaaja jirto oo ruuxu baahidaas maalan baahidu waa qaybo ruuxu dadku way iska baahan yihin si guud iyo waxaa jirta baahi maalan nolosha ay ku xidhan tahay ruuxu markii noloshiisii maalan uusan waxba cunin ee gaaja ay hayso shayga noocaasa inuu cuno uu ka dhergaaye way u bannaan tahay oo intuu iska qaato biduun idan uu ka dhergo way u bannaan tahay laakiin wax dadka ka dhexeeya inuu kiish gooni u qaato
dabeetana dadkii kale tusaale ahaan laga yaaba in kiishka ku hagaagin in ka yar waxaan iyaga unbaa loo waday farsamaa loogu qaybin lahaa farsamadii loogu qaybin lahaa buunan sugin farsamadii oo laga yaabo in kiishka nuskii ku ama rubicii ku hagaagi lahaa ama nuskii ku hagaagi lahayd buu kiishkii oo dhan qaatay ziyaada la socota uma banaana marka yani xaaraan bay ku tahay inuu qofku arrimaha noocaas oo kaleeta sameeyo waxaana fiican in xuquuqda guud ee dadka ka dhaxaysa aada looga fogaado ilaahay baa qani yeela qofkii isilaaliya qofkii yani tacafuf sameeya ilaahay baa subxaana wa tacaala yani ciwad ka khayr badan siiya dadka muslimiinta aan arrintaa inay ka digtoonaadaan ayaa habboon aad ayaa mahadsan tahay doctor ilaah ku barakeeyo saa-ilkii walaalkeena soo weydiiyey su-aasha waa ka bogtay insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inuu ilaahay ku canfaco su-aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan guursaday nin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawo barnaamijka cafan waan ka xumaay khadka telefoonka oo go-ay waxay leedahay su-aashu nin baan guursaday dabcan waalidkay isagoon ogeyn baan guursaday xilligaa adsaba baan joogay bay tiri waxaan maqlay bay tiri culimada muslimiintaan dhegaystay in uun weli la-aan nin la guursan karin kadib waxaan dabca inaan arrintii muraajaceeyo ninkaygii baan u sheegay ninkaygiina waa iga diiday naadeer waxaad sheegay waxba kama jiro u yidhi arrintii marka dhib bay igu haysaa aniga daakhiliyan marka sheekh arrintaas inaad ii caddeysaan rabaa bay tiri mas'alada weli la-aan in gabadhu ay guursato shareecadu jumhuur alculamaa sida axaadiidta nebigu ay noo caddaynaysay qabaan oo ah in laa nikaaxa ilaa biweliy in una nikaax jirin weli la-aan in haweenaydu aynan iyadu nafteeda guurin karin haweeney kalena ayna guurin karin oyna weli u noqon karin in haweeneyda aan la guursan karin yani intaba xadiis bay noo cadaynaysa haweeneydu aynan guursan karin ilaa yani idni waliyiha weligeeda oo idmo mooyaane in ayna guursan karin telefoonka aan qabano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi waa aliya sheekha waan salaamayaa walaal waan kaa qaadnay aad baa umahadsan tahay su-aashaada hore gal waxaan su-aasha weydiinaya waxa weyan dumarku markay carruurta naafka taqsiinayaan waxa ku daata ruba caanaha ayaa ku daata dadkooda markaa marka caanuhu najaasba caanaha dharkaa ku daata gabadha ka yimid najaasba ayaa su-aashaada ha ma lagu tukan karaa markaa haye walaal mahadsantahay aad baa umahadsan midda kale su-aal kale weydiinaya isagoo dayar ya isagoo dayar sida kuyihiisu haddii ero yartaan ma casayn karaa isagoo yar haddii maxay ahayd ceraystaan ma casayn karaa ma casayn karaa aad baa umahadsan haye walaal adiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha marka waxay tiri waxaad waday guurkii iyo inaan la guurin karin weli qof haweeney kasta oo guurisay nafteeda weli la-aan nikaaxeed inuu baatil yahay iyo nusuusta inoo cadaynaysa axaadiidtu jumhuur alculamaa shaaficiya iyo malikiya iyo xanaabila waxay qabaan in guurkaasu uu baatil yahay inuuna jirin dabcan inuuna jirin saas darteed waxaan leenahay intaynaan qeybta kala gelin gabadh walba oo muslimada kuwa aan hadda guursanin inay masalada iyada aada uga fogaadaan cid uuna weligeedu raalli uga ahayn marnaba inaynan yani masalada iyadaa inaynan guur u arkin oo ayna isku dayin inay wixii guurka qarsoon ama masaafada ama maxayga sheeg wixii nooc magacii la doona haloo bixiye inay aada uga fogaadaan ayaan gabdhaha muslimaadka iyo ragga muslimiinta ahba masalada iyada inay aada uga fogaadaan baan ugu nasiixanaynaa ama gabadha la guursaday ee hadda arrinta iyada ay ku dhacday culimadu runtii si cad oo ay uga jawaabeen jumhuur alculamaa waxay leeyihiin ama culimada hadda yani ra'yiga jumhuur alculamaa qaadanaysa kulligeenna waynu qaadanayna waxay leeyihiin in macnaha masaladaasu inay baatil tahay isla markaa waxay leeyihiin macnaha ninku ha furo iyagoo ilaalinaya furiddu macnaha hadduu baatil tahay maxaa loo furi baa timid waxaa u timid bay leeyihiin in macnaha yani la ixtiraamayo ra'yiga qaba inuu meher ahaa laakiin waxaan leenahay anugu gabadha hadda yani arrinta iyadaa guursatay ee dhacday ee reer hadda ah uma fatwoon karna hadda inuu meherkeeda ama guurkeedaas uu baatil ahaa una waxba ka jirin maxaa yeelay arrintaa wax fara badan oo hore oo siyaabo fara badan reero fara badan iyo wax fara badan baa ku taagan saa darteed dadka dambena waan uga degaynaa waxaa kale oo masale sugana in qofku haddii meherka lagu celiyo inuusan wax dhiba lahayn
haddii laisla fahmo oo kii horena inuu meher ahaa yani inagoo ka caranayna in reer baa ka yimid reernibaa ka timid caruur baa ka timid maslaxada noocaas iyadoo la ilaalinayo haddii aan la dhihin baatil buu kii hor ahaayo madhabka xanafiyada axnaafta aan raacno in meherku uu sax yahay in waxaa habboon la cusboonaysiiyo wax dhibana kuma jiro dadkii si caadi xataa isu guursaday inay cusboonaysaan wax dhibay kuma jiro marka in la cusboonaysiiyo dadkan weli guursanin waxaan aad uga degaynaa arrintaa iyadaa inay macnaha guur u arkaan oo ay sameeyaan kuwii horey u guursadayna hadday saasoo kale samayn karaan wanaagga ah fa biha wa nicma haddii kalena culimada la joogta in la weydiiyo cumuumanna hadda reer isqabo oo caruur leh oo yani ehelkii markii dambe ka raali noqday guurkaasu baatil buu ah lama dhihi karo reerkaana inaan dumino oo gabadhaas macnaha la yihahdo ninkii banaanku kaa yaho iyadii ninkeedii arrintaas ay ka timaado kolley masalada culimadu aad baan umalaynayaa inay daawanaysa ama culimadu inay aad waxaa laga yaaba ay ugu khilaafaan laakiin anu reerkaa hadda taagan saas ku dhismay meher ma jirin oo carruurtaasu meherlaan bay ku dhalatay ma dhihi karno marka laba arrimood way samayn karaan iyadoon wax dhiba ku jirinna guurka waa la soo celin karaa kaana way kusii joogi doonaan aad baad mahadsanta walaasheen su-aal kale ina weydiinaysa waxay tiri sweden baan joogaa madarisaan dhigtaa iskool baan dabcan dhigtaa iskoolka macallimiin aan muslimiin ahayn baa noo dhiga marka aad bay islaamka u necab yihiin bay tiri duhurkii markii duhurkii la gaadho salaada duhurkii la gaadho waa xiisaan leenahay islaantu marka islaam baa macallin noo ah islaantaas marka way diidaa waxay tiri xiisada kadib waa inaad tukatay dhahdaa su-aashaasaan ugoldeen kolkaan halkaa telefoon qabano asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo waa ku maqlaya walaal wala kusoo dhawo barnaamijka walaalo waa ku dhawaayay asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waxaan ku weydiin lahaa odaygayagaa la qalay yaa la qalay cunaha laga qala hooyada odayga may odayga haye marka rabadaan badan baa lagu leeyahay wuu soomi kari waaye ma ka soomi karnaa haye waan fahnay taas waxaan ku rabadaan badan baa lagu leeyahay ma ka soomi karnaa waan fahnay walaal waan fahmay su-aashaada aad baan u fahmay sheekhaan weydiin doonaa insha allahu tacaala jawaabta ka dhegeysa tv-ga insha allah haye walaal marka islaanta waxay tiri bacda waa inaad tukatid maxay ahayd xiisada kadib marka waana salaad duhur ma qalayn karaa bay leedahay salaadu haddii ayna xilligeedu baxaynin oo dibdhac ay tahay xiisaduna ay macnaha waqtigaasun ku kooban tahay oo ay leedahay way sugi kartaa ilaa inta xiisadu dhammaanayso laakiin haddii salaaddii waqtigeedu uu baxayo marka iyadaa sugi mayso way bixi way tukan waxaanan u sheegaynaa dadka noocaas oo kaleeta ah marka koobaad horta xaqa ilaahay baa wax walba ka horeeya haddii yani xaqa ilaahay yani isagoon kaa tegin shaygii kale aada gudan karto waa la samayn haddii ay isu qabsato shaygu xaqa ilahay in la guto iyo qof bani aadama in wax lagu dhowro xaqa ilahay baa la horreysiinayaa haddii marka salaada waqtigeedu uu baxayo way tukanaysaa waxaa kaloo on ku baraarujin lahaa walaashaas iyo walaalaha kale arrimahaasoo kale ay qabsadaanba gaaladu in kamidii way necab yihiin diinta islaamka laakiin yani meelaha ay hadda sheegayso oo kale laakiin waxaa jirta si guud ulama mujaahiraan yani ma cadaystaan oo xuquuqda iyo qawaaniinta dalalka ka jirtaay ma cadaynayaan ama ma ogolo qofka in cibaadadiisii inuu mumaaraseeyo loo diido ma ogola saa darteed ilaahay baa u sahlaya subxaana wa tacaala oo markii ay ilaahay subxana wa tacaala dartii u samaysa arrinta iyada xaqu yani ilaahay baa subxana wa tacaala maceeda ah ilaahay baana u gargaaraya arrinta iyada hadday maamulka meesha iyada ay dhigato ay gaadhsiiso ay ogeysiiso oy u sheegto in cibaadadii goonida u ahayd loo diidan yahay waxaan filayaa in xaq in loo helayo xal loo helayo yani qawaaniinta iyo cidday qusaysa nidaamka isaga inay gaadhsiiso isla markaa inay daraasadeedina dhigato ay xaq u leedahay oo maclimaddu ayna u diidi karin xaqii ilaahay ee ka horreeyay wax walban inay gudato ayay awoodi kartaa marka dadku inay xuquuqdooda bartaan yani xataa qawaaniinta gaaladu ay siinayaan oo aynan hanjabaada arrimaha dadka noocaas oo kale ka yimaada ayna u hoggaansamin ayaan ugu naseexayna insha allahu tacaala aad ayaa doctor maasanta ilahi ku barakeeyay gabadhi walaashin waxaynu soo weydiistay gabadhu markay ilmaha yar nuujinayso dabcan caanaha ka daadanaya caanahaas ma nijaasba ma lagu tukan karaas caanuhu nijaas maaha daahir weeye waa lagu tukan karaa wax dhibana ma leh waxay su-aal kale tiri ilmuhu markuu isagoo adoo yar bay tiri haddii maxay ahayd ruux cirooba dabcan cirada waa laga wada cararaay maxay ahayd ma casayn karaa bay tiri wixii hadduuna qish iyo dhib keenaynin yani curfigay u khuduucdaa shaygu inuu yani in waxaa weeye yani una qish keenayn inuu ruuxan timihiisan cad in wax kale lagu qariyo sideedaba taswiidka iyo khilqigii ilahay in la bedelaayay waa shay aan habboonayn ilaa liashyaa mucayan oo laga soo reebay bidaat timaha nusuus baa kusoo aroortay ashyaa mucayan oo laga soo reebay mooye marka in macnaha yani laa daaciya aslan in
yani ciradu marka hore qurux macnaha ma aha foolxumo ma aha dhibaatana ma leh haddii ayna kolley qish keenaynina yani xinaha iyo in la marayaay wax dhiba ma leh xina la marayaay dhib male aad baa doctor mahadsantahay ilaah ku barakay su-aasha kale waxay leedahay ninkaygii ama zawjkaygii baa cunaha laga soo baxay dabcan wuu xanuunsaday rabadaan badan baa lagu leeyahay annagu ma ka soomi karaa masalada soomka cidina cid kama soomi karto sharciga islaamka waa la fududeeyey oo markii soomka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hadlay ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu yusri inoo sameeyey soomku waxaa weeye qofku haddii uu buko oo cunaha ilaahay horta ha caafiyaan leenahay marka koobaad isaga iyo muslimiinta bugtaba waxaan u sheegaynaa marka walaasha iyo walaalkaas ba allaha caafiye haddii ayna wada maqlayaan iyo haddayna maqlaysaba walaasha iyo muslimiinta kale waxaan u sheegaynaa qofka soomka lagu leeyahay ee soomku uu uga tagay licudur sharci hadda ninkan wuu bukay oo mariid buu ahaa ayadda naskeeda ayaa dadka mardaha macnaha ee buka iyo musaafiriintaba fa ciddatu min ayaamin ukhar baa layidhi maradkiisaas marka waa laba qaybood marad loo arkay in laga bogsanayo iyo marad aan la rajaynayn inuu qof ka bogsado uu soomi karo haddii uu yahay marad la rajaynayo inuu ka bogsado waqtigii uu bogsado ayuunbuu soomi wax dhibahoo kale oo lagu yani wax kale oo lagu leeyahayna ma jirto haddii uuna isagu markii uu bogsaday kadib dibdhig uuna samaynin haddii loo arko maradkan inuu yahay marad daa'ima sidii yani ilahay baa daa'imka yaqaan wixii jiri doona ilahay baa yaqaanay lakin loo arko calaa xasab intaynu inagu garanayno inuu yahay marad macnaha ma cudur sii socon doono oo qofkani uuna soomkii awoodi doonin wuxuu bixinuun yani maalintii walbaba icaam buu samayn maalintii walbaba wuxuu samaynuun mud buu bixinayaa yani kiilo ilaa rubuc ama 75 garaam 750 garaam ayuunbuu maalin walba bixinayaa haddii uu sameeyana waxaa weeye maalin walba qof miskiina buu itcaaminayaa haddii uu doonana 30 qof buu yani taa iyada wusci baa ku jira way ballaaran tahay laakiin cumuumku waxaa weeye haddii soomki yani cudurkiisani loo arkay inuu yahay mid aan laga bogsanaynin itcaam buu samaynayaa haddii uu yahay mid laga bogsanayana wuu sugi inta uu ka bogsanayo dabeetana insha allah markii uu ilaahay caafiyo ayuunbuu qadayn haddii uu isagoo loo arkayay inuu ka bogsan doono uu ku geeriyoodana ilaahay subxana wa tacala uu u dhaafaya wax dembiya laguma leh aday mahadsan tahay doctor aad ayaan kugu mahad celinayaa waxaan soo gaadhnay barnaamijka gebagabadiisii kaga mahad celinaya juhdiga annaka iyo t v-ga iyo shacabka soomaaliyeedba aad siisay doctor dawal meel kastaad joogtaanba waxaan soo gaadhnay gebagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka fataawada ee caawa uu marto igu ahaa doctor sheekh cali maxamuud oo ka tirsan culimadeena soomaaliyeed anigoo daahir shaafin hawadan idiin soo marinayay bahda t v-ga africa qaybtiisa afraad ee luqada soomaaliga saas iyo nabadgelyo intaan barnaamijkan barnaamij lamida cafwan isugu iman doono asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون